fidma ka timid dibadda way dowlado badan hagayaan Soomaaliya qayb ka tahay Djibouti qayb ka tahay baawriska oo kale waqtigiina la saanadu fuud badan baa timaada ciidamada yimaada xerooyin baa laga abaabulaya waxa awood la saaray shirkaas inaanu dhicin taambuuga lagu xaroon ana waxaan awood saarnay shirkaas inuu dhaco ay Puntland ilaa qaal war Djibouti aynu ka deynooyo inaan maanta iyagana isku soo jeedin sool baynu ogna waxaan ognaa kililkeenu ogna dadka Soomaaliyeed baynu ogna islaanta Muqdisho joogta miskiinta ayana ka yaree bajaajka ku shaqaysanaya ay isagiiba dawladnimo doonaya sabab aniga la igu booyo inaan u duceeyo mooyaan Ilaahay nabadgeliyada iyo wanaaga iyo xasiloonida aan haysana si mooyaan sabab bartan aan ugu booliyoobo garanba maayo isir Soomaaliyeed iyo wada dhalasho iyo wax isku ahaansho waxaan ka weyn bayna dhaxyaan boqolaal reer Muqdisho baa hantidoodu Hargeysa taal oo inala jooga war dadka dareenkooda aynu dhowr war ummadda midnimadeeda iyo walaalnimadeeda aynu dhowr musabbixi way jirtay mar uu aad u caraysnaa uu yiri waa cadawgeena adeer cadaawad lagu waaraa ma jirto nabad lagu waaraa ka wanaagsan dadka oo dhanna weyn la heshiin doonaa insha Allah ma doonayno cid aynu ishaynaabay inay jirto dalalka jaarka heshiis baynu la aanaynaa Ethiopia Djibouti mid walbana danaha inaga dhaxeeyo waynu kala hadlaynaa laakiin ma aha macnuhu inaynu inagu gacanteena ku daydayno inaynu qaar iska xidhno